Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another lesson. And we have a dialogue between A and B. Waa la wiil oo saaxiiba, okay? Marka A ayaa inoo bilaabay wuxuu dhahay peace, nabad and blessing iyo naxariis of Allah ay xag Ilaahay ka timid be upon you dushaada ha ahaato. Waa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oo af English oo waay, okay? Qofka kasta wuu yaqaana. Then waxaad haysataa laba option markuu qofka sida kugu salaamo inaad dhahdid be upon you too. Sidoo kale عليكم السلام إيه إنا دهدي peace and blessing of Allah be upon you too. أنتو كل هاي أدادو كديبنا تو أقدر كراعيسيد أو سيدو كلاه لوضع ويكون فرنته كديب أمرك حودا I had وحن مغلي you went to abroad إن الدبد أدي when did you come back قرما صار لابتي then بيو حودا هاي I came back وحن صار لابتي recently دوان أيان صار لابتي okay recently مركوا دوانهن okay دوانهن أيان صار لابتي دوان مردو أيان صار لابتي then marka wuxuu dhahay how is life in abroad my dear bal sidee tahay nolosha dibadda ah ama nolosha qurbaha saaxiibkayga qaaliga ahayow bal waa saaxiib diana waa qaali then b marka wuxuu dhahay life in abroad nolosha dibadda ama nolosha qurbaha is very hectic waa mid mashquul badan hectic waxa waaye wax lagu mashquulayo lagu madax wareerayo ayaa Allah okay it is not maahan as you dream sida ku riyootiin maaha oo macnaha inay meel maasha Allah tahay oo iskaga raaxaysta ay tahay maaha abtikabaha lagu hurdaa okay and then marka wuxuu dhahay why did you come back to Nairobi maxaad ugu soo laabatay Nairobi then b marka wuxuu dhahay I want to marry waxaan rabaa inaan guursado Filsan gabadh la yiraahdo rabaa inaan guursado and enjoy aan ku raaxaysto my vacation waa fasax holiday waa okay marka fasaxiga hiya halkan in Nairobi then marka wuxuu dhahay wow ajiib okay wow waa ajiib okay wax la yaab marka aragtida waxaad ku farxadid yaa isticmaali kartaa ereygaas you are very lucky aad bad u nasiib badan too dhahay although inkasto I don't trust aanan aaminin trust waa aaminid people dadka from abroad dibadda ka yimid then b marka wuxuu dhahay why sabab maxaa u aaminin then wuxuu dhahay they divorce waa ereyga dhawaaqii saxda divorce maaha okay they divorce waxay furaan their wives xaasaskooda when they go back to abroad markay dibadda ku laabtaan qofka qorbuhu ka yimaani gabar yar u dhaka siini markuu laabtana tartiibka warqadeeda u soo dhigaya DHL ka then wuxuu dhahay marka they divorce waxay furaan their wives xaasaskooda when they go back to abroad markay dibadda ku laabtaan ama qurbaha ku laabtaan that is why taasi waaye sababta their marriage guurkooda is called loo yiraahdo vacation marriage guurkii fasaxa macnaha xitaa waxaa laga diyaariyay oo programna laga diyaariyay because gabdho fara badan oo mustaqbalka uga ciyaareen inkastoo dadka ka yimaado qurbaha ay wada xumeen marka wuxuu dhahay guurkooda marka waxaa la yiraahdaa guurkii fasaxa yar oo 3 bilood la soo qaadana oo taraaga laga nasanayo iyo kabihii lagu hurdaayay kadibna waxaa la dhihi jiray sheeg waa markii la laabtana gabadha waa la soo furaya marka wuxuu dhahay b Filsan is my soulmate Filsan waan jeclahay soulmate waxa la qofka nafta aa wadaagtiin soul waa naf mate waa wadaag okay macnaha qof hal naf wadaagaysi macnaha jacaylka meesha la gaaray kaliya ma fahantay marka wuxuu dhahay Filsan is my soulmate Filsan waa macnaha qofta nafta wadaagnay and I will never divorce her weligeena ma furi doono okay waayo dhahay we shall see waa arki doonaa halkaas ayaan ku dhamaatay sheekada waa mahadsantiin